Hi guys, assalamu alaikum satiin waana Queen Hawa ku soo dhawaada channelkayga Queen Hawa ku soo dhawaada video cusub maanta waxaan rabaa inaan idin sameeyo unboxing waxaa bilaabay sanadkan oo vision boardkayga ku jiray inaan barto makeupka aan marsaday se way soo sheega please commentiga igu qora makeupkayga taa ka hesheynay kaleeto so anyway waxaan rabaa inaan idin la wadaago waxyaabaha aan soo gatay inaan idin la share gareeyo iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin waa hataa kulli wada xasuusan karaba faa'iidooyinkooda because markii la ii sharxay waxaa dhahay oh my god wallahi dhaha okay si so anyway aniguna waqti dheer idinka qaadanin waxaa idinkugu bilaabayaa waxaan soo qaatay concealerka markii la ii mariyay maasha allah aada uga helay waxaa kasoo gata Falmar Soomaaliya by the way Muqdisho minta ku taalo concealerkan wajiga halka roo ka dhigaa sidoo kale tane brighten oo natural hoosina ma fahamteen so madama anina bilaw ahay wax u baahan in la qaqariyo isticmaali kari so waxa u baahanaa waxyaabo iska simple ah oo ii fududeynayo shaqada second waxa waaye perfect coverage foundation kan 12 saacadood ku haynaya inaba caadi maahan mid kale waxa ku jira zaytuun iyo lows oo wajigaaga siinayo wajigaaga nafaqa siinayo والله عادي maaha waa ka helay by the way shalay marsaday wallahi 6 saacadood iyo marsana xaasaq dhaxa iska dhaqaya adile balbalkaasay waa kaasay shay 6 saacadood iyo marsana makeup kan baa 6 saac ka hor la mariis ma deys ma fahmaysa second waxa waaye blush kooda blush kan waxaan ka helay waxa waaye wuxuu eg yahay skin kaaga mid u ega dalbanaysa ay kala reeyayaan so mid skin kaaga u ega dalbanaysa waxa ka helay waxay tahay inuu eg yahay maqaarkayga natural brightness ku siina ma fahamtay dhaldhalaal oo dabiici ah loo maleynaa oh my goodness kabacdi maskaradan aniga sa ogtiin timahayga way baabeen ina ogtiin kale moogi laakiin reer TikTok way ogtiin timaha indhahayga way baabeen sababtoo ah maskarooyinka isticmaalayay timahayga daadinayeen marka tan soo qaatay midan timahaaga nafaqaysiinaysa because waxa ku jirto fitamiinaad oo waxa ku jira timaha korinayo saliid qorwac iyo waxa ku jirto saliidaha ku jiraan okay waa ilaawaba maninaani laakiin waxa ku jiro waxyaabo tintaada korinayo sidoo kale tan volume siinayo brushkiisa brush unique ee waaye volume siinayo okay asxaabay please need is odisa okay hatta hada makeup qash yahay qash waaye soo dhina because markii ugu horeysay waa marsado gabadhiina makeup ugu horeysay ee marsatay ina qash waa soo dhahdin ayb calaykum kabacdina waxa soo qaatay labadan taariikh waa okay gabar meesh fadhisay oo marsanaysay oo teamka kamid ahayd Flormar iyadoo marsanaysa arba fiiri abaya qurux waa soo gudbi labadan soo qaatay inkaad marsan waaye wajigaygu egyahay okay so waa ka helay maadaama kan waa lip kan waxa waaye waterproof eyeliner laakiin aniga bishmeyga u isticmaalay by the way da ku dhigtid ama biyo cabtid ama wax cabtid kale tan ka tirtirmaayo ka sheekeeya kan waxa ku jira shea butter vitamin E iyo wax kale ta ku jiro oo siinayo bishmahaaga qoyaan dabiici ah bishmahaagu uu roon yahay soft and kaliya ma fahamteen that's it inta soo gatay let me show you waxa ay go'an insha Allah sanadkan ina makeup ka barto okay so mar waxaa arkay gabadh inta aan TikTok ka fiirsado qodan la dhaho makeup artist ee kale ina aragteen aan jeclahay gabadhaas masha Allah makeupkeeda khatar Soomaali maalmaha kamid ah makeup waxay tiri waxaa la dhahay hadar makeupkan oo soo qurxa ku soo baxo wajigaaga nuuciisu u yahay waa ina ogaateed so ayada wajiga nuuc soo baxay waa fish makeup I don't know saxmiya qalabmiya booge laakiin fish makeup baa soo baxay and then fish makeup markaas waxa gabadha ma marsatay wajigeeda qurux ku soo baxay fahamteen so hadda aniga qorsheyga maxaa waaye fish makeup because I'm aminsanahay aniga iyo ayada
isku kind of wejigeena shape-ka u samaysan yahay isku qaabinana hadda lacala makeup kala taqaaniin isoo sheega say waaye fish makeup maa leeyahay mise mali so yeah waa ka helay xaasida marka way u dabadaysan gabadhaas maadaama iyada kaaga cilmi badan tahay waxaan makeup artist tahay ay taqaano so yeah boardka waxa igu dhegsan hada waa gabar marsan fish makeup adana waxa isku dayaa kaas inaan barto hadda soo idin leeyahay idinka qorxmiya qashmiya wax igu adag barashadiisa waa sunniyaha waana inkiroya hadda xataa ma shanlaynin sunniyayga dareemaysiin kalmooge ma shanlaynin xataa just sidiisa ku dhaafay because kii lagu shanleynaya ii yaalo kana isticmaali waan idin soo fiiriya kana isticmaali maagay waana cabsaday because inuu wajiga iga halay madowaad uu leeyahay waxaa kasoo furay maskarooyin hore u isticmaali jiray maskara hore u isticmaalaya kasoo furtay waa baqana waxaa isdhehe hadoo kaa halay gabaran so yeah sunniyaasha oo barana insha allah laakiin maadaama hadda markii ugu horeysa ay tahay aan rabay in ay idinla wadaago idin tuso keliya waa ka cabsada sunniyaha okay please instagramkayga follow soo dhaha because Instagram iyo TikTok aa soo dhigay videoga anoo marsanayo idinkana maraan isoo sameynaa insha allah so yeah sanadkan maxaa idin qorsheysan idinka maxaa kale ku jiro waxyaabaa idin qorsheysan aniga talaabada ugu horeysay sanadkan waxyaabaa ii qorsheysnaa aan ka bilaabay waxaa kamid ah makeupka in makeup aan rabay inaan barto oo aanan bilaabay alxamdulilah yep sidoo kale youtube-ka kamid ah inaan xooga saaro saan ijeedin labadan bari nafa isoo gelinoya idinkana maadaama ani naf iska raadinayo waxaa rabaa gabadhiina inaad taageertaan oo garab buuxaad siisaan oo aad share sii dhahdaan videoyadan ama meelaha gaarsiisaan oo subscribe channelka noo saartaan xataa haddaad tiktok ya leedihiin waxaad samayn kartiin screen record inaad ka qaadaan baad aad tiktok gey kartaan just dadka si faalo noo soo dhahan oo caa'iladeennana ee u weynaato ma fahamteen so insha allah waxaa rabaa had kabacdi in waxyaabihii aan qortay dhan aan xooga saaro last year sanadkii tagay waxaan sameeyey vision board waa samaystay laakiin ma wada xaqiijinin waxa aan meesha ku dhegsaday so sanadkan waxaa iga go-an inaan wada xaqiijiyo sabto why not why sanad kasta aan dhaha waxaasaa rabaa inaan sameeyo waxaasaa rabaa inaan sameeyo haddana aan u sameynaynin right dad waaweyn baa leeyahay in la isku xishooda fiican so waxaa go-aansada insha allah sanadkan in aan ka dhabay dhammaan wax meesha igu qoran waana idinla wadaagi doonaa sanadkan because sanadka hore ma idinla wadaagin ceebaa dareemay maadaama waxba aanan hergelinin inta ugu badneed ma hergelinin intaan hergeli way yareed laakiin sanadkan waxaa sameynayaa waxyaabihii aan hergeliyay iyo waxyaaba aan hergelinin baa idinla wadaagi doonaa waa haddaa wada noolnahay oo ilaahay subxaana watacaala caafimaad iyo nolol aan kusii joogna na siiyo so I hope video gina ka hesheen please hada ka hesheen channelka subscribe saar like saar videoyadina share dhaha la wadaaga asxaabtiina and comment down below wayno video kaleeto iyo anigoo nabad qabo insha allah bye guys